ورحمة الله وبركاته صاحب يلوين السلام ميل والبقدنو يدعلا ذا كتشوكتان وذاكسين برودكشن يوركي قدام بيا إدلك دبديسة يقديسة channel كان وذاكسين وأدو قبرتينا كلا سعتان ففاهنا ذا وركي قدام بيا فنك الصوماليات يوركي قدام بيا إدلك الصومالية قديسة يدبديسة فلان ده هدي أتمرك كجورة channel كواحد كعصنا إن هتكمل نقطة صاحب بدأ إن هالكان نقلا سعدا صاحب سي أدو كسو برت channel كواحد تابعنا سبسكرايب بutton قبل كان وافرنا سي أي كوسو جارا وحول بقى وأنا هالكان سو قلنا وأتكون حسن تاي كسو برتان كchannel كنا wararkii ugu dambeeyay aan maanta idin haynana waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo si rasmi ah u raacisay natiijadii ka soo baxday qaraxii la beegsaday xaruntii dawladda hoose ee gobolka Banaadir faafahin dheeraada ayaan ka helnay gabadha isku qarxin rabtay gobolka Gado degmada Baardheere ciidamada Itoobiya oo sheegay in ay qabteen gaari hub laga soo buuxiyay oo ka yimid dhanka Soomaaliland amniga fil Soomaaliya iyo xurmaha dawladda oo aad loo adkeeyay sababta ka dambeysay in la adkeeyo daawadayaal intaasina waxa weeye qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay inta aan warka faafahintiisa ugu galin fiidiyoga u shargaray asxaabtaada si ay asxaabtu ogaadaan xogta muhiimka ah muuqaalkan like sar una shargaray asxaabtaada ma santahay wararkii ugu dambeeyay ee aan helayna ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay soo saartay baaritaan ay ayaantan oo dhan waday oo ku aadan kiiskii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo asxaabtii kale ee meesha ku dhimatay فاينada ayaa sheegay in shakhsiga isqarxiyay uu ahaa gabar ka shaqeyn jirtay xarunta dawladda hoose oo lagu magacaabi jiray Basiiro Cabdi Maxamed oo waalidkeed u yaqaaneen Maryan Cabdi Maxamed gabadhan iyo sida ay ku soo gashay ayaa waxa la sheegay oo baaritanadu ay sheegayaan in gabadha tani ay la shaqeyn jirtay gabar kale oo kalkaaliso u ahayd gabadha Basiiro Cabdi Maxamed ayay dawladdu ka qabtay kalsooni saa'id ah lamana baarin waxaana la soo galiyay meeshii uu ka dhacay shirka ay ku qabsanayeen xubnaha dawladda hoose iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa la sheegay gabadhii kalkaaliyaha u ahayd Basiira in ay baxsatay oo meesha aan lagu arkin oo aan raq iyo ruux meel ay joogto aan hadda lahayn laakiinse xogo muhiim ah oo aan helay ayaa noo sheegaya in gabadhan la dhaho Basiiro Cabdi Maxamed oo ah gabadha araga ka jiranayd xuruntana ka shaqeyn jirtay gabadha kalkaaliyaha ay ka shaqeyn jirtay xurunta ay bil ka hor fasax ka qaateen xurunta waxayna bisha ka hor ay aadeen goobaha argagixisada Soomaaliya ama degmooyinka ay ku xawood badan yihiin argagixisada Soomaaliya halkaas oo loo maleynayo in laga soo tashkiiladeeyay bil koor ay fasax qaateen sidaasina ay ku suurtageliyeen qaraxii xarunta gobolka Banaadir faafaahinadan rasmiga ah oo ay soo saartay dawladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in loo xiray 10 qof oo kamid ah shakhsiyaad lagu tuunsan yahay in ay ka dambeeyeen arrintaani waxaana ku jira shakhsiyaad caan ah marka hore baaritaankan ayaa la wadaagay qoyskii injineerka Cabdiraxmaan Cumar Yariisow kadibna waxa la geeyay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay baaritaanadan iyaga oo waraaq ah waxayna ku tusiyay halkan hoose oo jeedaan waraaqdii ay soo saareen baaritaankan ayay dadka qaar ku eedeeyeen in aan loo dhameyn oo yahay baaritaan khaldan oo xubno kamid ah gobolka Banaadir ay ka dambeeyaan dilka injineerka sida loo sheegayna baaritaankan ayaa waxa ku lug leh shakhsiyaad caan ah oo xubno ka ah gobolka Banaadir oo markii uu lugaha la galay baaritaanku laga wareegtay ama laga biididay in shakhsiyaadkaasi la soo bandhigo wararka kale ee naga soo gaaray degmada Baardheere ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in shalay ciidamadu ay togteen gabadh bamba gacmeed ku soo weerartay saldhigga degmada Baardheere ee gobolka Gado gabadhan ayaan ku xirnayn qalabka la isku qarxiyo ee ismiidaaminta oo jaakadaha ama waxyaalaha la isku qarxiyo gabadhan kuma aysan xirnayn gabadhan ayaa soo agmartay saldhigga degmada Baardheere iyadoo oo bamba gacmeed ku soo tuurtay ciidamo saldhigga hortiisa fadhiyay waxa ku dhaawacmay 3 askari oo dhaawac aad u fudud yahay kadibna ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay gabadha iyadoo gabadha aan sawiradeeda iyo xogteeda muhiimka ah aan helnay gabadha tani ayaa la sheegay in ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay gabadha tani oo dhaawac markii hore loogu tagay laakiin si kadib dhimatay iyadoo wax sir ah aan laga qaban sawirada gabadhana waxay in soo saaraya halkan u jeedaan gabadha sawiradeedii dawaaxda canshuuraadka ee dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay qabteen gaari hub laga soo buuxiyay oo ka yimid dhanka Wajaale ee maamulka Soomaaliland dawaaxda canshuuraadka ayaa sheegay in gaarigan uga yimid dhanka Soomaaliland ay ka buuxeen bastolada aad iyo aad u tiro badan gaarigan oo noociisa iyo nooca dalka Turkiga uu soo sameeyay oo loo yaqaan Suusu ayaa waxa lagu qabtay xuduudka Wajaale waaxda canshuuraadka Itoobiya ayaa sheegay in gaariga kan lagu tuunsan yahay in kooxihii falka afgambiga isku dayay ay wax ku yihiin iyadoo horaantii bilowgii sanadkan ay afgambi fashilmay oo ka dhacay dalka
wararkan keenana muqdishona waxay sheegayaan in aad loo adkeeyay xarumaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Villa Soomaaliya meelaha dowladdu ku shirto iyo golaha wasiirada xarumooda wararkan keenana Villa Soomaaliya ayaa noo sheegaya in aad loo adkeeyay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo aad looga shakaysan yahay in ismiidaamino iyo falal amniga liddi ku la eegto waxaa la baarayaa shakhsiyaadka soo gala xaruntan oo ay ka mid yihiin wasiirada iyo dhammaan ruux walba oo lug soo gelin kara madaxtooyada Soomaaliya ama ka shaqeeya waxaa lagu amray ciidamada dowladda in aysan shakhsi bilaa amar uu ku soo gali karin ama asagoo aan la baarin uu soo gali karin xarunta madaxtooyada iyo xarumaha kale ee dowladdu muhiimka u ah madaxtooyada Soomaaliya ayaa amnigeeda aad loo adkeeyay iyadoo oo shakhsiyaadkaasi lagu soo baarayo ama baabuurta lagu soo baarayo taalada sayidka eelgaabta iyo xaafadaha u dhow iyo wadooyinka soo gala madaxtooyada Soomaaliya daawadayaal intaasina waxay ahaayeen wararkii iyo warbixinadii buuxday ee aan idiin haynay maanta intaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.